السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي وإن سلامي waxaad rajeynaya waqti wanaagsan meel walba joogtaan maanta waxa jeclaystay in la wadaago sababtay u tahay muhiim in ilmahaaga aad u ogolaatid inay qaataan waxa la dhahayaa riski qatarta sababta muhiim u tahay waxa weeye waxay ku baranayaan waxa dhibaatada ka soo mareen faa'iidada ay leedahay ogaanayaan kabacdina maxay waxa laga yaabaa markaas inay ayaga maskaxdooda kaligood isticmaalaan isdhahaan okay meeshan waa ku soo jabay waa ku soo khasaaray so maxay ahayd waxa ma ku laabanay laakiin hadaan u ogolaanin inay qatarta galaan alashan waxay noqonaysaa in overprotective nahay in aad u ilaalino wax markii aad loo ilaaliyo qofka aad loo ilaaliyana wuxuu ahaana weligiis baby oo kale aan kobcin aan korin oo isku kalsooneen aan kaligoodna wax qabsan karin so qatarta marka qaar qatartina u ogolaatay inay taabtaan sida tusaale ahaan hada idin soo qaato meel beer camal hadaagis qatar weyn noloshooda dhibaato dhaawac u keenaynin so tusaale ahaan hadii camal oo beer aad joogtiin ilmaha meel lagu ciyaaro ee leedahay ama meel la koro oo laga soo dhici karo hadii ay ciid tahay dhulka oo kaleeto ha ku dhihin meesha ha korin ama hadihin maxal dhahay waa dhici doontaa so ayaka let them use their head oo kale ayaka ha isdhahaan oo meesha ma kori kari ama hadaa kor waa soo dhaca ama haday soo dhacaan oo dhib weyn gaareen just caadi tahay wax yar you know wal oynaya undaas xanuun yar bay dareemayaan laakiin waxa ku baranayaan kaas adeeg maxay tahay casharka qaataan inay dulqaad yeeshaan inay madaxooda isticmaalaan iyo waxyaabo kale badan hadii kaleeto waxay noqonayaan ilmo mar walba gacanta lagu wado oo maxay ahayto adiin ku sugayo so risk taking ka hadhow noloshooda qayb weyn ka qaadanaysaa tusaale ahaan waxa ugu weyn ee ka qaadanaysa waxa weeye noloshooda kale hadhow go'aamo markay qaadanayaan markay weynaadaan dad waaweyn anagoo kale noqdaan shaqo oo kale camal hadii oo shaqooyin badan la soo dalbadaan shaqooyinkaas ay u kala dooran lahaayeen haday doonayaan inay naftooda kaligood ay noqdaan dad ganacsato ah oo kaligood isku filan haday doonayaan maaragtay wax kale oo ayaga u qaas inay sameeyaan so waxay noqonayaan qof aan ka baqin qalada hortaalo ama qatarta hortaalo because waxay ogyihiin qatar walbo khayr ka dambeeyo marka si sax u sameeysid marka ha kala baqin ilmaha waxyaabaha yar yar oo dib weyn u geeneenin in oo maaragtay inay maxay ahayd oo faa'iido darad ha u maleelin cashire ka qaadanayaan adeeg ka qaadanayaan kalsooni ka qaadanayaan horumar ay ku helayaan insha Allah so marka insha Allah wax walba oo yar oo dhaawac yar keeni karo ha u maleelin in qasaaro weyn leeyihiin so inta saarabana idin la wadaago waa mahadsantihiin sidii mar walba insha Allah pass it on si gudbi so marka mahadsantahay assalamu alaykum